gabar ayaa si lama filaan ah u ogaatay in haweenaydii ay muddo ka badan 10 sano u taqaanay hooyo aysan ahayn hooyadeedii dhabta ahayd. Heiju waxay la kulantay aabaheed iyadoo ku adkaysanaysa inuu u sheego cidda ay tahay hooyadeedii dhabta ahayd. Inkastoo uu aad u rabay inuu runta u sheego, adeega butlerka ayaa ku qasbay inuu sirta qariyo si uu badbaadadeeda u ilaaliyo. Mar kale ayuu aabaheed doortay inuu aamuso. Dhanka kale, adeega iyo wiilkiisa Tangi ayaa laga saaray shaqadii waxayna ku noqdeen guriga qoyska hodanka. Halkaas Tangi waxaa garaacay wiilka sayidka guriga Ilmun wuxuu Tangi ku eedeeyay xaaladda walaashiis isagoo ku adkaystay in maadaama uu adoon yahay ay waajib ku ahayd inuu qoyska ilaaliyo. Wuxuu uga digay in haddii wax kale ku dhacaan Tangi uu qaadi doono cawaaqibka. Maalintii xigtay Tangi wuxuu aaday buur si uu murugadiisa uga sii daayo, wuxuuna halkaas ku arkay Heiju oo isna murugo ka muuqato. Heiju waxay aragtay dhaawac ku yaala dibintiisa waxayna weydiisay waxa ku dhacay. Wuu been sheegay isagoo yiri uu dhacay. Waxay bilaabeen inay ka sheekaystaan noloshooda. Markii Heiju ay ogaatay in Tangi hooyadiis isaga tagtay isagoo yar, iyaduna waxay u sheegtay inay dhawaan ogaatay in hooyadeeda aysan ahayn hooyadeedii dhabta ahayd. Inkastoo ay rabtay inay ogaato cidda hooyadeed tahay, haddana waxay ka baqaysay in laga fogeeyo aabaheed. Si ay isugu ilaashadaan sirahooda, waxay sameeyeen balan far yar, Pinky Promise. Markii Tangi uu gacanta Heiju qabtay isaga oo kusoo barbaaray kelinimo, wuxuu markii ugu horeysay dareemay diirimaan. Wuxuu gartay inuu bilaabay inuu jeclaado gabadha naxariista badan ee quruxda badan. Kadib Heiju waxay booqatay isbitaalka si ay u aragto Inha oo weli miyir la'aan ah. Albaabka hortiisa ayay ku aragtay hooyada murugada la ildaran, waxayna xasuusatay in loo sheegay inay mar dambe Inha u dhowaan. Waxay rabtay inay baxdo, balse si lama filaan ah Inha ayaa toostay. Hooyadii oo faraxsan ayaa gabadheeda isku duubtay. Markii Ilmun uu Heiju ku dhaafay dariiqa, wuxuu ku jeesjeesay isagoo weydiinaya waxa gabar faqiir ah halkaas ka samaynayso. Heiju way ka jawaabtay murankooduna wuxuu gaaray qolka. Inha oo la wada martay geeri ku dhow hadda ma necbayn Heiju. Waxay ku casuuntay inay gudaha u soo gasho oo la sheekaysato, inkastoo hooyadeed aysan rabin inay kulmaan. Inha waxay si degdeg ah u sheegtay runta. Iyada ayaa ku qasabtay Heiju inay doonta yacht wado si ay ugu faanto saaxiibadeed. Heijuna dhab ahaantii iyadaa badbaadisay nolosheeda. Markii ay taas ogaatay, hooyadii hodanka ahayd waxay dareentay dembi weyn. Si ay u saxdo qaladkeedii, waxay qabatay xaflad waxayna ku casuuntay qoyska Heiju. Aabaha Heiju wuxuu daawanayay sida ay hooyada hodanka ahi ugu naxariisanayso Inha isagoo eegaya Heiju oo aan waxba ogeyn oo ag taagan. Wuxuu aad u rabay inuu sheego in Heiju ay iyaga gabadhooda tahay. Wuxuu ka fikiray sida ay Heiju u farxi lahayd haddii ay ku barbaari lahayd nolol hodanimo. Si jawiga loo dejiyo, hooyada hodanka ahi waxay ku ammaantay hooyada korsatay ee Heiju sida ay u korisay gabar edeb leh. Laakiin hooyada korsatay si qabow ayay u tiri inaysan dan ka lahayn gabadheeda. Hooyada hodanka ah way yaabtay. Si ay u muujiso awooddeeda, hooyada korsatay waxay Heiju ku amartay inay aado oo ay daryeesho walaasheeda yar ee hurda. Inha arrintaas way la yaabtay. Maxay hooyadeed u diidaysaa inay wax cunto? Ma hooyo xun baa? Hadalkaas ayaa ka caraysiiyey hooyada korsatay. Waxay ku dhawaatay inay qirato inay tahay hooyo korsasho, balse adeega ayaa joojiyey isagoo dareenka qof walba soo jiitay. Goorma ayuu adoon hadli karaa? Qofka kaliya ee fahmay sababta wuxuu ahaa aabaha Heiju. Wuxuu adeega ula baxay jikada wuxuuna weydiiyey in Heiju iyo Inha ay mataano yihiin. Carruurtu isku dar bay ahaayeen. Maxaa qoyska ka dhigay inay ka tagaan hal gabadh? Adeegu wuu aamusay. Markaas Tangi ayaa yimid isagoo sheegay in hooyada korsatay ay hore ula baxday walaasha yar. Aabaha Heiju isagoo ka walwalsan inay gabadhiisu keligeed banaanka joogto ayaa degdeg u baxay. Dhanka kale, hooyada hodanka ahi waxay Heiju siisay dhar qaali ah. Markii Heiju ay xiratay oo ay soo jeesatay, nabar gubasho oo dhabarka kaga yaalay ayaa muuqday. Ka hor intaan hooyadu si fiican u arkin, aabaha Heiju ayaa yimid oo kala dhex galay. Hooyo iyo gabadh mar kale way seegeen inay iskartaan. Heiju farxad ayay ku qaadatay dharkii oo ay guriga ku noqotay. Laakiin hooyada korsatay ma u adkaysan inay ku aragto dhar qurux badan, waxayna ku amartay inay iska bixiso. Habeenkaas aabaha Heiju wuxuu eegayay iyada oo hurda, wuxuuna ka fikiray Inha oo iyaduna ah gabar ku nool nolol raaxo leh, halka Heiju ay la kulanto canaan joogto ah. Si uu u joojiyo dhibaatada, Heiju wuxuu go'aansaday inuu runta shaaciyo. Nin ayaa si lama filaan ah u ogaaday in gabadha uu korsaday waalidkeeda dhabta ah ay yihiin lamaane maalqabeen ah oo ka tirsan qoys jebel ah. Isagoo go'aansaday inuu gabadhiisa dib ula midoobiyo waalidkeedii dhabta ahaa, ayuu qaatay qaar ka mid ah alaabteeda, dabadeedna raadiyey gudoomiyaha qoyskaas maalqabeenka ah. Laakiin ma uusan ogeyn inuu qof khaldan la kulmay. Isaga oo aan ogeyn in Jang Do-hyun uu yahay ninkii sanado ka hor dilay aabihii dhabta ahaa ee Heiju, islamarkaana hooyadeedii dhabta ahayd ka dhigtay xaaskiisa. Markii Jang Do-hyun arkay funaanadii ilmaha, islamarkiiba uu garwaaqsaday in ninkan la aamusiiyo. Wuxuu dafiray in funaanadu ay ka tirsan tahay gabadhiisa la waayey ee Yojin, wuxuuna aad u xanaaqay markii aabuhu soo jeediyey in xaaskiisa la weydiiyo. Wuxuu ku adkaystay in gabadhiisu dhimatay, wuxuuna uga digay inuusan dib u furin dhaawacyo hore. Isaga oo aan haysan wax kale oo uu sameeyo, aabihii Heiju uu baxay isagoo wata funaanadii. Laakiin Jang Do-hyun oo arxan daran ma uusan doonayn inuu sidaas ku dhaafo. Wuxuu u yeeray butlerkii, ninkii islamarkaas loo xilsaaray inuu Yojin iska tuuro sanado ka hor cadaadis awgiis. Butlerkii wuu qirtay inuusan qalbi u yeelan inuu dilo ilmaha. Wuxuu u dhiibay saaxiib halkii uu dili lahaa. Wuxuu ka been sheegay isagoo leh wuu arkay iyadoo dhimanaysa cabsi darteed. Hadda oo aabihii Heiju la yimid funaanadii, wuxuu u qaatay in ninku raadinayo lacag. Laakiin Jang Do-hyun ma rumaysan sheekadiisa. Wuxuu dalbaday in saaxiibka la keeno si fool ka fool ah loo horfariisiyo. Ogaanshaha in arrintaasi ay fashilin doonto beentiisa, Butlerkii wuxuu go'aansaday inuu marka hore tirtiro aabihii Heiju. Wuxuu helay gaari xamuul duug ah, taarikadiina wuu bedelay, wuxuuna tababar ku qaatay shil ku dhufasho. Habeenkaas iyadoo aabihii Heiju lug ku socday si uu guriga ugu laabto, Butlerkii wuxuu ku dhuftay xawli buuxa. Heiju waxay ku soo socotay baaskiil si ay ula kulanto aabaheed. Markii uu arkay gaariga oo ku soo socda gabadhiisa, aabuhu uu orday si uu jidka uga riixo. Butlerkii wuu leexday wuuna ka seegay Heiju, balse si toos ah ayuu ugu dhacay aabaheed. Wuxuu ka cararay goobta. Aabihii Heiju waxaa si degdeg ah loo geeyay isbitaalka. Saacado qaliin ah kadib, dhakhaatiirtu waxay sheegeen inaysan wax kale samayn karin. Qoyska waa inay isu diyaariyaan waxa ugu xun. Markii Ina maqashay shilka, waxay ku adkaysatay in hooyadeed isbitaalka geyso. Heiju waxay qabatay gacmaha aabaheed, hadalna way sii waday. Wuxuu si kooban u miirsaday isagoo og in waqtigiisu yaraanayo. Wuxuu isku dayay inuu u sheego runta, laakiin dhaawacyadiisu aad bay u cuslaayeen, erayadu kama soo bixin. Isla markaas hooyada maalqabeenka ah ayaa timid. Gacmo gariiraya ayuu ku tilmaamay. Heiju way u jeesatay si ay u eegto, balse daqiiqadii ugu dambeysay waxa kaliya ee aabaheed awooday inuu sameeyo waxay ahayd inuu daadiyo hal ilmo ka hor intuusan geeriyoon. Heiju ma fahmin waxa uu rabay inuu yiraahdo. Qofkii kaliya ee adduunka si dhab ah u jeclaa wuu dhintay. Iyadoo la arkayo murugada Heiju, hooyada maalqabeenka ah si aamusan
aamusnaan ah ayay uga baxday qolka. Hyeju waxay dambaskii aabaheed ku daadisay badda iyadoo xasuusanaysa dhammaan waqtiyadii ay wada qaateen. Mar kasta oo xaaladdu adkaato isagaa garab taagnaa si uu u dhiirigeliyo. Hadda wuu tegay, waxayna garan weyday sida ay mustaqbalka ula kulmi doonto, gaar ahaan iyadoo ay la noolaanayso hooyo tallaabo ah oo mar walba doonaysay in guriga laga saaro.